kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbaahinta xogta wararka qodobada wararka Soomaaliya iyo caalamkan idiin haynana waxaa kamida muxuu Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland ka sheegay markii uu maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka Jubbaland xiisada Jubbaland oo waji kala yeelatay iyo kulamo siyaasadeed oo halkaas ka soconaya shirar gaar oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo la qaban qaabiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeerre oo codsaday in xildhibaanada loo ballamiyo iyo xaalka oo cakiran awoodii dawladda dhexe oo ay ku wareegtay maamul goboleedyada mala isleeyahay dalka hoggaankiisa waxa xukuumaya hadda dawlad goboleedyada federaalka ku dhismay maxaa la gudboon siyaasad ahaan madaxda qaranka xilliyada sidaan oo kale jahwareerka dalka uu soo wajaho madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo bandhigay sir qarsoonayd oo ay qorshe ahaan degayeen ra'iisul wasaare Qeerre iyo madaxweyne Farmaajo halista qarsoon ee shirkadda Balaag Water ay amniga Soomaaliya ku tahay iyo xog la soo bandhigay oo ay dawladda Soomaaliya ilaa haatan warcad ka soo saareen jabinta heshiiska madaxweyne Uhuru Kenyatta oo la galay Xasan Sheekh Maxamuud xilligii dalka xukumayay soo lama oran karo waa culays siyaasadeed oo mar kale lagu tijaabinayo dawladda madaxweyne Farmaajo garoonka diyaaradaha Wajeer oo diyaaradaha Muqdisho ka bax la sheegay inay sii marayaan caqabad adag iyo foolxumo ka dhacday halkaas gabdho Soomaaliyeed oo dhibaatooyin la kulmeen dibaddana waxaan idiin haynaa Venezuela waxay dib u furtay xuduudda ay wadaagaan wadanka Brazil iyo waliba banaanbax looga soo horjeedo kufsiga kalkaaliyayaasha lagula kaco oo ka dhacay wadanka Bangladesh taas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka Soomaaliya iyo caalamka warbaahinta xogta wararka waa 11 bisha shanaad ee May 2019 saaxiibayaal daawadayaal qodobo xasaasi ah baa ku jira maanta wararka ee nala socda aan ku bilowno madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxa uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ka hor inta uusan u dhoofin oo uusan diyaarad u raacin magaalada Nairobi madaxweyne Xaaf ayaa duhurnimadii maanta kula hadlay wariyaasha garoonka Generaal Maxamed Abshir in dalka uu haadaan ka sii dhacay hadii aan laga badbaadin ay halis ku tahay dadka iyo dalka sida warka uu yiri madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in shirkii Garowe uu noqday mid fashil ku soo dhamaaday sidaas awgeedna ay dawladdu diiday in wax tabashada maamul goboleedyada ay ka garawdo Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda ay ka dhaadhicin waayeen maqaamka magaalada Muqdisho in ay cadeyso oo shacab badan ay u dulman yihiin xaqoodiina aysan helin waxa uu hogaamiyaha Galmudug sheegay in sagaashameeyadii dalka uu sida uu ahaa ka fiican yahay hadda ahaan marka loo eego xaaladda wadanka uu ku jiro saluug dhinacyo badanna uu muujiyay ugu dambeyn madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu xusay in qodobada la isku qabtay shirkii Garowe ay qayb ka ahayd sharciga doorashooyinka iyo xeerka shidaalka ay ahaayeen waxa ugu weyn ee la isku mari waayay inta shirka uu socday waxaana magaalada Garowe ku soo idlaaday shirka magaaladaas ka socday 6 maalin ee u dambeysay isla markaana maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay ku lahaayeen halkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeerre ayaa la sheegay in uu dalbaday la kulanka xildhibaanada golaha shacabka si buu yiri ay uga hadlaan arrimo muhiim loo arko dawladana inay hore ugu sii dhaqaaq karto la doonayo xildhibaanada golaha shacabka ee nabad iyo nolol ka tirsan ayaa la rumaysan yahay in fariimo la gaarsiiyay siba la yiri qabanqaabada kulamo siyaabooyin kala duwan u dhacay oo magaalada Xamar ra'iisul wasaaraha uu kula qaadan doono dhawaan xildhibaanadaas ayaana lagala shirayay la yiri sidii ay u meelmarin lahaayeen nidaamka sharciga shidaalka oo muran badan uu ka taagan yahay arinta ugu weyn ee shirka Garowe fashilisay ayaana la aaminsan yahay in ay tahay mid siyaabooyin kala duwan dadka ay u macneynayaan maadaama siyaasadda heer xun ay hadda gaadhay marka loo eego madaxda maamul goboleedyada iyo sida ay u kala irdhoobeen shirkaasna fashilka uu ku dhamaaday ila lagu kalsoon yahay ayaa ku waramaya in ra'iisul wasaare Qeerre uu dalbaday xildhibaanada si uu wala hadlo meel marinta dadajinta iyo waliba in sharciga shidaalka uu noqdo mid fallaarta lagu tooganayo dawlad goboleedyada hadii la ansixiyo ay dawladda u aragto
madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre ayaa isku soo dhowaanshiye ballaaran laga dareemay marka loo eego xurgufta siyaasadeed ee mar kale kaga soo fatahmaysa maamul goboleedyada qaarkood xilli jubbaland iyo galmudug ay meel cad ka soo istaageen la kulanka madaxda qaranka waana tan keentay in axmed madoobe uu shirka garowe isaga baxo magaalada kismaayona dib ugu laabto xildhibaanada taageersan dowladda dhexe waxa falsafadeeda ayaa sheegeen in ay diyaar u yihiin meelmarinta waxaana jira lacaga la bixinaya baa layidhi oo loogu talagalay xildhibaanada meelmarintaas haddii ay ka qayb qaataan la siinayo ma cadda siday noqon karto xaaladda iyadoona jawiga uu yahay mid cakiran islamarkaana laga cabsi qabo xaalka inuu meel sare gaaro waa hagaag daawadayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta xogta wararka waxaa nagu soo maqan axmed madoobe iyo markii kismaayo uu tegey wixii uu sheegay maanta hase ahaatee madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa taageero waxa uu ahaa dowladda dhexe islamarkaana tan iyo bishii sebteembar shirkii kismaayo ka dhacay sanadkii hore waxa uu ku daba feelanaa oo dowladda uu taageero muuqato u ahaa iyadoo warkeedana uusan diidayn bilo ka hor ayaa hirshabeelle iyo dowladda dhexe xurguf ay soo kala dhex gashay oo ku aadanayd qaabka loo qaybsanayo deeqaha beesha caalamka ee gargaarka ay ugu tala gashay maamul goboleedyada wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaana bahdil ku samaysay hirshabeelle oo ay qoondo aysan u qalmin sanduleys kaga dhigtay inay qaadato laakiin hirshabeelle ayaa warcad ka soo saartay diidmo qayaxanna u muujisay wasaaradda waxaana ay xilligaas wixii ka dambeeyey xaaladdu ahayd mid aan si fiican u dhoojisanayn siyaasad ahaan iyo isku soo dhowaanshiyihii badnaa ee hirshabeelle iyo dowladda dhexe inkastoo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare uu ka siyaasad xeel dheer yahay hoggaanka guudna uu kala wado sida la sheegay maamulkaas cali guudlaawe madaxweyne ku-xigeenka maamulka dowladdana si weyn ay saaxiibo dhow u yihiin maxamed cabdi waare ayaa sheegay soona bandhigay sir qarsoonayd oo ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne farmaajo damacsan yihiin oo ku aadan meelmarinta shidaalka sharciga ah ee soomaaliya taas oo caqabad ku ah maamul goboleedyada xogtan ayuu la wadaagay maxamed cabdi waare maamul goboleedyada hoggaankooda jubbaland puntland iyo weliba galmudug waxaana keentay in maamuladaas ay dowladda ku cadaadiyaan dib ugu laabashada xeerka shidaalka dalka ee baarlamaanka hor yaalla tani waxa ay muujinaysaa in hirshabeelle ay qudheeda budo gaar u tuman tahay oo dowladdu ay ka doonayso balqancin gaara inay ku samayso marka ay ka soo jeesato dhinaca galmudug iyo weliba jubbaland oo hadda labada garab dowladda haysta farqahana ku dhegan xaqoodana u doodaya markanaanu eegno wixii uu magaalada kismaayo ka sheegay markii uu maanta dib ugu laabtay madaxweyne axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo si diiran ayaana loo soo dhoweeyey waxaana uu wariyayaasha kula hadlay magaaladaasi inkastoo wariyayaasha warbaahinta madaxa bannaan u shaqeeya aan laga qaybgelin shirkaasi jaraa'id oo warbaahinta dowlad goboleedka jubbaland oo keliya ayaa xaadirtay haddana waxa uu soo bandhigay sababihii keenay inuu fashilka ku dhammaado shirkii magaalada garowe waxa uu axmed madoobe sheegay in shirkii garowe diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda iyo sidii siyaasadda waddanka sal loogu dhigi lahaa islamarkaana lagu soo afjari lahaa kala fikir duwanaanshiyaha ka dhex jiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada balse waxa uu sheegay arrintaas inaysan diyaar u noqon dowladda federaalka ayna sababtay in shirka uu natiijo la'aan ku dhammaado shirka jaraa'id ee axmed madoobe oo si weyn loo wada dhowrayay ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka uu xusay inaysan dowladda federaalka ahmiyad badan u haynin iyadoo ay ka baxday buu yidhi heshiiskii baydhabo ee wada qaybsiga kheyraadka iyo heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka madaxweyne axmed madoobe waxa uu xusay in hal maalin lagu daraynin doorashooyinka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada islamarkaana wararka been abuurka ee la xiriira jubbaland iyo galmudug ay doonayaan waqti kororsi in ay yihiin waxba kama jiraan aan sal iyo raad toona lahayn shirka jaraa'id ee madaxweyne axmed madoobe kismaayo garoonka diyaaradaha uu ku qabtay maanta waxa gabagabadii uu shacabka jubbaland ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan oo ay ilaaliyaan midnimadooda ayna nabadda ay haystaan ku fara adeegaan dowladda federaalkana ay qorsheynaysa buu yidhi mar kale kuna celiyey warkaasi sidii dagaal la sokeeyey deegaanka ay uga dhici lahaayeen
axmed madoobe ayaa shakhsiyaad uu sheegay in hoteello ku yaalla magaalada muqdisho ay dowladdu lacaga ku siinayso sidii amni darro iyo qulqulatooyin uga dhex abuuri lahaayeen magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland. weli waxaad naga daawanaysaan warbaahinta xogta wararka. halis qarsoon ayaa laga digayaa in ay wado oo dhinaca amniga ah shirkadda Blackwater ee iyadu ah mid fadhigeeda uu yahay dalka Mareykanka lana aasaasay 1997kii. weerar qaraxyo ah ayaa kala hore Soomaaliya ee ka filisay baa la yiri shirkaddan oo ah mid amniga ka shaqeysa waxaana si gaar ah ay tahay baa la yiri shirkad gaar loo leeyahay oo arrimaha militariga ka shaqeysa waxaana muddada 22 sano ay jirto shirkadda Blackwater la rumaysan yahay meelo kala duwan oo caalamka in ay arrimo amni darro ah ay ka dambeysay. xarunteedu ugu weyn shirkaddan waa Virginia gobolka la yiraahdo ee wadanka Mareykanka waxaana ay tahay mid weeraro argagixisanimo ka taageerta dhinacyada Soomaaliya siiba Al-Shabaab iyo Daesh sida lagu eedeeyay. warar ayaa sheegaya in Imaaraadka Carabta ay xiriir dhow yeesheen Eric Prince ninka la yiraahdo oo aasaha ugu sareeya shirkadda Blackwater waxaana uu gaaray shirkadda Blackwater weeyane meel sare waxaana lagu eedeeyay weerar qarax oo ka dhacay gudaha masjid ku yaala Cabdalla Shideeyaha suuqa Bakaaraha. qaraxa ka dhacay masjidka Cabdalla Shideeyaha sanadka 2010 kowdii bishii May 9 sano ka hor ayaa qaraxaas uu ka dhacay masjidka Cabdalla Shideeye waxaana xilligaas dhaawac uu soo gaaray u qaybsamaha dhinaca dacwada iyo tashkiilinta shabaabka Fuad Maxamed Qalaf Fuad Shangole. waxa ay shabaab xilligaas sheegeen in qaraxaas ay soo abaabushay oo ay ka dambeysay shirkadda Blackwater. bal markana wararka dibadda ayaan eegaynaa. banaanbax ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay wadanka Bangladesh oo ay dhigayeen dadka ka shaqeeya caafimaadka waxaana laga soo horjeeday sida la sheegay kufsi loo geysto iyo toogasho dadka caafimaadka ka shaqeeya. kufsiga iyo toogashada kalkaaliyayaasha Bangladesh ayaa kordhay isbuucyadii u dambeeyay siiba waxa la yiri kuwa ka shaqeeya baa la yiri ardayda baranaysa maadada kalkaaliyanimada. gabar ka mid ah dadka banaanbaxa ka qayb qaatay una ololeynaysay ka hortagidda arrintan kana shaqeysa cusbitaalka Dhaka ee magaalada caasimadda ah oo Shahinuur Akhtar Taaniya la yiraahdo waxa ay sheegtay in wasaaradda caafimaadka ay u gudbiyeen xaaladan soo korortay ayna doonayaan wax ka qabasho muuqata siiba magaalada Qisho Riganj la yiraahdo oo 62 meel u jirta kufsi uu ka dhacay Isniintii toddobaadkii hore. booliisku waxay sheegeen 5 qof in loo xiray oo baaritaan ay ku socdaan kufsi loo geystay Nusrat Jahan oo ahayd gabar kalkaaliyanimada baranaysay isla markaana inta la kufsaday kadibna la dilay bishii la soo dhaafay. kufsi wadareedka iyo dhibaatooyinka galmada ee xoogga loo isticmaalo ayaana laba jibaarmay wadankaas. Saara Xuseen oo ah sharciyaqaan wadanka Bangladesh u dooda xuquuqul aadanaha ayaa sidaas iyana ku warantay. guud ahaan daawadayaal intaasan ku soo gabagabeynayna wararka warbaahinta xogta wararka ee caalamka iyo Soomaaliya aan idinkaga haynay inta aan wararkan oo kale dib isku maqleyno. amaana Allah.